ciidamadii Soomaaliland markay kabihii gacanta ku qaateen oo ceeryaamo iyo dhada Ilaahay ku kiciyay qalbi jabkii naxdintii iyo jahawareerkii maanta Soomaaliland waxay miciin biday inay nin Yahuudiya dhunkato isaaqna waxaan leenahay dadku way kala adkaadaan waa yoocada ilaa qow waxaan leeyahay ummadda goboladaas ku nool tala ayaa u taala halka wax rabaa inaan kaga hadalno aqoonsi beenaadka Israa'iil ay tiri waxaan siiyay Soomaaliland waxay aqoonsi ka raadisay wadan aan isaguba aqoonsi haysan Israa'iil wuxuu cadow ku yahay ummadda muslimiinta ah waana dawlad aysan aqoonsanayn badi dawladaha adduunka taariikhdu waa wax isqorta ummadda ku nool Soomaaliland weligood waxay ahaayeen dad jecel inay gaalada la macaamilaan ka soo bilow xilligii daraawiisheed oo ay ahaayeen dadkii Ingiriiska dhabarka saaray Ingiriisku dadka kaliya oo aragtidooda ku qancay oo uu la macaamilay oo uu la noolaa ayay ahaayeen sida aad gabayo fara badan aad ku aragteen iyo taariikhaha sooyaalka Soomaaliya qof kasta oo Soomaaliyeed waxa muhiim ah inuu jiritaankiisa iyo qiimkiisa iyo dhulkiisa difaacdo aqoonsi beenaadkaasna ka soo horjeedsado absolutely Somaliland aqoonsiga kani dhul kaligeed kuma eka dhulka ay joogtana kuma eka meelaha ay rabto inay la go'do waxa kamid ah gobolka Sool iyo Sanaag guud ahaantii labada gobolba waxay rabtaa inay la go'do sababtoo waxa weeye khariirada Netanyahu haysto ee aqoonsiga Somaliland lagu siiyay waa yoocada ilaa qow waxaan leeyahay ummadda goboladaas ku nool tala ayaa u taala inay arrintan soo korortay ka tashadaan oo tala ka yeeshaan isaaqna waxaan leenahay dadku way kala adkaadaan haddii dagaalkii laascaanood uu dhibaato idiin sababay ma aha inay Yahuud u gashaan dhacdooyinka la yaab kale ee foolxumada ah ee aan hadda social media ka daawanayna waxa kamid ah in tawxiidkii laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah calanka ku qornayd in uu nin Yahuudiya ku istaagayo in niman askar ah oo askarta Israa'iil ka tirsan oo Hargeysa jooga la dhunkanayo waxyaabahaas oo kale wax inta ka badanna waa soo socota waxaan leenahay ummadda ku nool goboladaas waqooyi galbeed inay maanta fahmaan dhagarta Israa'iil oo uu aqligu soo noqdo Somaliland in Israa'iil la macaamisho waxyaabaha sababay waxa kamid ah ciidamadii Somaliland markay kabihii gacanta ku qaateen oo ceeryaamo iyo dhada Ilaahay ku kiciyay qalbi jabkii naxdintii iyo jahawareerkii maanta Somaliland waxay miciin biday inay nin Yahuudiya dhunkato waxa ay taasi sumcad xumo ku tahay qof kasta oo Soomaalinimo sheegta iyaguna waxaad moodaa Soomaalinimadiiba inay ka jecel yihiin inay Yahuud saaxiib la noqdaan Soomaalinimadiiba inay ka sii bixi rabaan bay qarka u saaran yihiin reerkaas